maxaa ka jira inuu qasaaray ama uu hirgeli waayay sidii loo rabay barnaamijkii Metaverse oo ikhtiraacay mulkiilaha shirkadda Meta ee Mr. Zuckerberg. mulkiilaha shirkadda Meta ee horena loogu yaqaanay Facebook waxa uu subaxdii Arbacadii la wadaagay shaqaalihiisa fariintaasi oo sida ay shaqaaluhu baraha bulshada ku wadaagayaan noloshoodii qalibtay. Haddaba muxuu Zuckerberg ku yidhi shaqaalihiisa? Waa su'aasha dadweynaha caalamku u dhagtaagayaan. Waa tan fariintu waxay u dhigneyd sidan: maanta waxaan idinla wadaagayaa qaar ka mid ah isbedelada ugu adag ee aan ku sameeyay taariikhda Meta. Zuckerberg ayaa ku yidhi warqadda: waxaan go'aansaday inaan dhimo tirada kooxdeeda shaqaalaha qiyaastii 13% oo aan ogolaado in ka badan 11,000 oo xirfadlayaasheena kartida lihi inay shaqada ka tagaan. Waxaan sidoo kale qaadaynaa dhowr tallaabo oo dheeri ah si aan u noqono shirkad hufan oo si habboon u shaqaynaysa. Waxa uu raaligelin ka bixiyay sida lama filaanka ay wax u dhaceen, waxaana uu ballan qaaday inuu kab uga samayn doono shaqaalaha tiimka ka baxay uuna aad uga xun yahay. Ballanqaadyadiisa uu shaqaalaha u sameeyay waxaa ka mid ahaa inuu 16 wiigba siin doono mushaharkooda, isagoo ugu daraya 2 wiig oo loo xisaabinayo inta sano ay shaqaynayeen. Sidoo kale health insurance-goodana waxa uu qabi doonaa 6 bilood ee ugu horeeya. Waxa kale oo uu sheegay inuu ka joojiyo wixii awood ay shirkadda u haysteen, balse uu u daynayo email-adoodii si ay iskula xidhiidhaan una la xidhiidhaan tiimka intiisa kale. Tallaabadani waxay tilmaamayaan dadku inay tahay rixinimo amaba uu ka qalbi jilicsaya Elon Musk oo ah mulkiilaha cusub ee Twitter-ka oo isagu gabi ahaanba u jaray xididada shaqaalihii faraha badnaa ee uu muddada dhaweyd daadiyay. Waxa ay khabiiradu ku sheegayaan in Meta waxa dhaqaalaheeda hoos u dhigay ay yihiin maalgelinta cusub ee Metaverse. Barnaamijka Metaverse waxa weeye barnaamij weli dhismihiisu socdo oo adduunyo digital ah, waxaana uu sanadkani ku kacay ilaa $9.4 bilyan. Zuckerberg ayaa sheegay inuu hindisay barnaamijkan waqtigii koronaha maadaama dunida online-ku ay xilligaa dhaqdhaqaaq fiican samaysay. Haddaba su'aashu waxay tahay shaqaalaha inta seeftu dhaaftay ma la sii shaqayn doonaa shirkadda? maxaa yeelay waxa walaac ka jira oo shaki ka galay in shirkaddu cagta saarayso dhabbada toosan iyo inay barbar mari doonto maadaama uu dakhliga shirkaddu weli salaanka ka laalaado.